بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أدبا السلام يا ورالها قالدها كورنين بيج كيدا أنا أقول لها درتي الصومالية والفايدية والسنفالي معلن شامة from Sweden. أدبا السلام يا دمانتي بسولة هذا بارك الله فيكم. أرتيدا دافعها الدنيا يحنا نغيب فيسبوك يا يوتيوب يا أرتيدا خاص كيان faraha badan in gaarka ugu dhigo ilaaba mahadle waxaan isku daynaa barnaamijkan inaynu gallo maanta oo aynu ka sheekayno barnaamijkani waa barnaamijka lixaad ee abu jihaad inta badan markaa waxaad arkaysaa waxaa ku qoran abu jihaad halkaa ku qoran iyada madow abu jihaad waka traffic schoolan markaa barnaamijkani meel walba u yaalaa Sweden waad heli kartaan hataa haddii aad gobolada kala joogtana wadamada kalena waad heli kartaa insha allahu. su-aasha koowaad baynu gelaynaa imise qof baa ku dhintaa ayaa ku dhintay gaadiidka dom sena stephen oo shantii sane u dambeysay imise qof baa gaadiidka ku dhintay Kenya. su-aasha saxdii waxa weeye 500 ilaa 600 500 ilaa 600 waa biida weeye su-aashu waa biida 500 ilaa 600 qof hadda si u qiyaasayaan nimankan hadda su-aasha saxdii waa sidaa oo dadka ay luqadda ku adagtahay Swedishka aan garanayna haddaan isku dayo inaan dul cararo hurmonga maniqo inteen leeg oo dada har årligen ayaa sanadkiiba årligen ayaa sanadkiiba blivit dödande ayaa u dhinta i trafiken gaadiidka marka laga soo qiyaas qaato domsena stephen oo sanadkiiba intee u dhinta markii 5 sano u dambeeyay la sanadkiiba intee u dhinta marka waa 500 ilaa 600 haddaba mar waxay sameynayaan way ku khaldayaanoo waxay ka dhigayaan 500 ilaa 400 marka 500 ilaa 400 dooro su-aashuna sidan bay sax ku tahay. waayahay waxaynu u soconaynaa horay insha allah. number 2 waayahay waxaa lagu yidhi laydhar nooceeya imanka waxaa laga hadlayaa qaybta laydharka baabuurka ku xiran xagga hore iyo xagga dambe si fiican walaal u faham walaalkayga Soomaaliya weeye mar Soomaali baan kugu sheegayaa la soco walaal. laydharkeebay qasab tahay inay gaariga xagga hore kaga xidhnaadaan xagga hore xagga dambe lagama hadlo xagga hore intee laydh bay tahay inay gaariga ku xidhnaadaan waa inaad fahmi kartaa af Swedish haddaan ku sheego filkan blisnik waa laydharkee blisnik måste finnas fram till en personbil måste finnas ayay qasab tahay inay ku yaalaan fram till en personbil fram till xagga hore ee personbilka gaariga caadiga ah waa laydharka ay qasab tahay inay xagga hore ka yaalaan. dadku laydharka dee waxay u haystaanba inay laydhku isku wada laydhu yahay macquul maaha taasi laydharku isku wada laydh maa walaal magacyay kala leeyihin. waayahay waxaad markaa inoo dooraysaa gaariga xagga hore waa inay kaga yaalaan laydharka caadiga ah indhaha yaryar iyo indhaha waaweyn ee la bedelo markay gudcurka tahay waa inaad indhaha waaweyn ka dhigataa haddaan wax baabuur soo soco oo ku muuqan gudcurna ay tahay indhaha waaweyn waa lagu ogolyahay mar walba indhaha waaweyn ama shido. waayahay marka su-aasha saxda waxaynu ku doonaynaa ta saxdii waa aada weya waa tan aada weeye walaal way isku wada egyihiin waa helius
waa indhihii waaweynaa hell use waa indhihii waa leyrkii labadan erey waa use waa leyrkii hellna waa indhihii waaweynaa dhibic halafna waa qayb waa half use waa indhihii yaraa markii la shiday indha caadiyaa la baxa indhahan caadiga aynu ku soconaa la baxa leyrka caadigaa la baxa marka waa indhihii waaweynaa oo heela half use-kana waa indhihii yareeraa indhihii caadiga ahaa ee gaadhigu caadiga ugu soconayay kuwana waa full leyrka kuwa loo yaqaano kuwana waa kuwii caadiga ahaa sekinka ah waxaa soo raaca barkering use oo ah marka gaadhiga sidaa loo shidaba dee waxa baxay indho yare waa cadcado xagga hore ah iyo xaggii dambena waxa baxa indhihii kale ee barkering use-ka loo yaqaanay dee iska shidmi jiray maaha break marka la qabato waxbaa sii casaanaya laakiin indhaha israaca barkering use baa la yidhahdaa iyo ka u dambayso ah shore righting visare shore righting visarahaasi waxa weeye iyo kuwa tilmaamayaasha waddada sida markaad blinkaha ridayso bidix u weeco midig u weeco xaggan iyo marmarna markuu shil dhaco ama taayir kaa banjaro dee markaad afarta israac wada shido labada horena way baxayaan oo birbidhaahaya oo labada dhinacyada labada dambena way baxayaan markaas su-aalahani way isku dhow yihiin halkan waa lagu khaldayaa halkan waxaa lagu leeyahay head use kuwii waaweynaa half use labadani waa sax laakiin halkii barkeringku soo geli lahaa shore righting visare u dambeeyey baa lagu soo qaaday halkanna waa lagu khalday oo dean use baa lagu soo daray dean use-kaasi waxa weeye waa leyr yar oo turuska hoose gaariga ku yaala oo la shito xilliga ceeryaanta ay waddadu tahay su-aashuna saasay aada sax ku tahay waayahay fordushorabil gaarigaaga miyaad ku kaxayn kartaa gaarigaaga ma ku kaxayn kartaa ama ma ku wadi kartaa mid andasti barkering use keliya gaarigaaga ma ku kaxayn kartaa barkering use waxa weeye waxaa ka maqan indhihii waaweynaa iyo kuwii kale labadii way ka maqan yihiin waa indhaha yaryar oo keliya gaarigaaga ma ku kaxayn kartaa barkering use waa indhaha yaryar oo keliya gaariga ma ku kaxayn kartaa baa lagu de waa maya su-aashu waa maya haba ku xiiqinte maya su-aashuna sidaasay sax ku tahay waayahay waxaa lagu yidhi su-aashan walaalkayga qaaliga ahow macquula su-aashan waa su-aal aada u macquula maasha allah soo dhawaada waxaa lagu yidhi waxaa taagantahay baa lagu yidhi wadda dhinaceeda wadda koonaheedaa taagantay waxaana sugaysaa baa lagu yidhi qof rakaaba oo aad dejisay oo aad sugayso waxaa lagu yidhi waa god waa xilli god cura waddadana waxaa ka maqan laydharkii ama waxa loo yaqaano gato belisnik laydharka waddooyinku way ka maqan yihin su-aasha u dambaysana waxa lagu yidhi waa intan vilket use iska dhoohaatanda ibida laydharkeebay tahay inaad shidato oo gaadhigu kuu shidnaado waxa weeye mar kale aan ku celiyo waxaad taagan tahay baa lagu yidhi dustanar vidle counting waxaad taagan tahay waddada dhinaceeda ogfanterbo waxaad sugaysaa in baasakheeraga sombroya qof rakaaba waa ama aad dejisay de ama kusoo furay de armork waa gudcur ama waa mugdi oo vegan soknar bilisnik oo waddadana waxaa ka maqan bilisnik laydharki filkan use iska dhawaataan daibina laydharkeed shidaysa ay tahay qasab inuu kuu shitaada horta anagu waddanka markaan soo gallay luqad maanu garanayn imikana ma naqaano luqadda oo oran mayno dee boqolkiiba boqol baan nahay laakiin horta halihii yaraa anigu aan bartay un baan ummadayda soomaaliyeed u soo bandhigaya
nin baa yidhi hayna waa iga intaa hagarina waa iga walabir kuwa badan oo PhD holders oo waddankan jooga oo muraydo oo kiyaalo waaweyn qaato markay waddooyinka maraya aad yaabayso aad moodo inay dhulkaba ka khashaafayaan ayaa maanta awoodi waayey iska dhaaf inay mujtamaca soomaaliyeed wax kusoo kordhiyaan bal hadda gurigiisii buu ka qabtay waa wuxuu soo bartay marka waxa weeye soomaaliya waxaan idin farayaa walaalayaal inta yaraa taqaano walaalkaagan iminka sharciga qaatay ee waddanka ku cusub caawiyo soo kacdhe si uu maanta liisan u qaato si uu kii baska u qaato si uu kii tareenlaha u qaato si uu kii tooga u qaato si uu maanta xataa heer tuusi oo heer jaamacadda dhinaca ka wato si waddada aanu tilmaano dadkii aan ka soo horreynay anaga idinooma tilmaano marka inta yaraan aqaano haddaan xataa wax gowlgowlo anigu wax iga galay male wixii aan aqaanay ee aan bartay baan anigu dadka u faa'iideynaya liwajillah aad baan idiin salaamayaa aan ku noqdo haddaba marka waxaad taagan tahay baa lagu yidhi istaana vigvekantin waddada dhinaceedii baad taagan tahay oo vanterbo waxaad sugaysaa cid baa safeera leh qof rakaaba somdroyarkaasoo adde degi soo fuulay waa mork waa gudcur oo feegan waddada sognar waxaa ka maqan biliisni laydharki gato biliisnig waxa laydhaha laydharka waddooyinka markay shidan yihiin laakiin iminka gato biliisnigii waddada laydharkii shidnaa ma jiraan marka laydhkeebaad ay tahay inaad shidaan marka afar baa halkan lagu soo dhigay afar laydh oo baabuurta ku wada yaala kala baro luqadana ku baro dadyooga kale ee yurubta ka soo gelaya walaalihiin ma qusayso luqadeedeen jabaydaye af soomaali ahaan baan dee ku sharaxayaa af soomaali ahaan igu fahmay kow baarkeerin yusbacay ayaan shidaya waa indhaha yaryar kow laba wuxuu yidhi halaf yus baan shidaya waxaan shidaya indhihii caadiyiin saddex wuxuu yidhi vonibs blinken baan shidaya afartii israac ayaan shidayaa ka u dambeeyana wuxuu yidhi waxaan shidayaa helius intan baa afartanba waa afar laydho baawarta ku yaala leedharkii waaweynaa baan shidaya su-aashu waxay sax ku tahay mar haddaan sugayo qof waa inuu ii shidnaado maxaa loo yaqaano yuska انكسر كم ندوخي ولا هذا كان قلنا كم marka doonayso theory inaad barato si habiya adigoo habiya baro adigoo habiya walaal baro barakallahu fiik hadegdegin ayar idin lacag kama doonayso kaabaa ku duubay samafale macalin jaamac ayar walaal baro ayar isdegdejin degdeg iska saar degdeg meel laguma gaaro degdeg meel laguma gaaro aytaa soomaalidu hadduu dembigsiiyo door dhalo kaasiina kiish lacag u dhala yes waa yahay halkan walaal waxaa lagu weydiiyey su-aasha oo maxay su-aasha layna weydiiyey waa muxuu yidhi ninkan ilaa hadda laydharkii iyo wixii baa lagu barayaa walaal oo doonaya si macaan inaad u barato barakallahu fiik naar iska baarkeenius avandas goorma ayaad isticmaalaysaa baarkeeniuska undermork xilliga budurka tiibaa haddana si kale lagugu dhigay walaal goorma ayaad baarkeeniuska isticmaalaysaa xilliga gudcurka su-aasha waxaad ku xafidaysaa walaal barakallahu fiik kuwan kale ha ku xiifin inaan miqa kan wada sharaxo macno badan inoo samaynayso ta saxda un baynu u baahnay walaal jazaaka allah khayr taa ku xafidina every village stop bovega marka waddada aan istaago yani hawlaygu dhacaan for example this waatan for example this
tusaale ahaan bitayul marka tayr la bedelayo yani tayr baa iga banjaray waxbaa igu dhacay stop siday doontaha ku timaada inaan istaagay suurtagal noqotay oo timi marka waan istaagayaa ila waa budcur laakiin waa inaan shitaa barkeriuska waa inuu shidnaadaa oo gaariga uu arki karaa marka gudcur adigoo gaarigii wada aad ku soo baxdo gaariga leerkiisii casaa ayaad iyo indhahaagii waaweynaa ku dhacaya markaa waad fahmaysaa inta badan iyada oo for din secretary school yani adiga ammaankaaga dartii ay suurtagal tahay ay ka fiican tahay inaad markiiba la degto waa gudcur soo maha la deg xagga dambe fur bahalka tiri angalka ah ee kaaha celiyaha ah xagga dambe fur intana tayrkaba furin ila waxaa dhici karta gaari inuu si degdegba kuu soo galo marka yar lugee gaariga xoogaa ilaa 100 mitir meel u jirta soo dhig si gaarigu intaan adigaba ku soo gaarin uu kaaha celiyaha leerka ku soo dhifto kadibna leerarkaagii barkeriuskii oo shidanna waa يعني أمانها بعين كامل سوي ذاتك مركب بوجن مهور يالوك لك أخريه سو في سويدش كا ميلها غار وهيكون عندنا يا بحر كا قادستي سيء ديست ماشى لا دقا ويك لا تدوران كره هذا يودو كنتم تاي كنتم لو صعنيو بقول مترس كحدن ميست ماي إلا إيو كنتم متر أما إنك يرصد بدك يعني إيه دبدي سكفري laakiin haddii waddadu tahay 90 iyo 100 waxa ay tahay waa inaad yar durkisaa si aan gaarigu aad marka hore ka qariyaha uu leerka ku soo dhifto oo uu ogaado inuu gaari meesha ku jiray aad baan idin salaamay masha Allah weli laydarkii baynu ku jirnaaye vilkan bilisnik laydarkii for inta avandas samtidig ayaana si wada jira ula isticmaali karin vidvod af bashombi marka aad socod ku jirto laydarkeedaanad wada isticmaali karin adoo gaarigii wada laydar waxaa jira aad wada isticmaali karin oo kaa mamnuuca inaad labadaba wada shido waa kuwee samtidig labada aanad wada shidi karin ee mamnuuca ah ee dadkana cawaraya dhibtana keenaya waxa weeye helius iyo dimius labadan ma wada shidi kartid midda kale baarmankan oo kale haddaad doonto inaad qashkiisana aad la socoto oo baarmankana gurigaaga yaallo haddaad ka shakido su-aasha halkan tag waa imise imika halkan lambar 6 bay maraysaa 6 weeye 6 ka tuur oo nagu soo noqon doonaa waxaad ka dhigtaa konton oo ay nagu tagayna halkii jawaabihi konton maaha 3 buuro garee 3 iyo konton ka dhigba 4 iyo konton ma ka dhig halkaa ku qor konton iyo 4 nambarkan wuu diiday 3 iyo konton ka dhig 3 iyo konton ka dhig halkaa maadaama halkan 3 iyo konton ku qoran yahay صح واتن شحن واتن oo laga eeganayo way baaranka marka dhamayso xagga u dambeeyo waxa ku yaala calaamadaha marka imka lambar 6 bay nahay 6 waa kii waan khaldi karaa balay bilaadan baan hay waa biida 6 waa biida kaadi hadana 6 aan ku qoro ilaa halkan keeg kala shaxda hadaan ku sharaxo halkan su'aasha koobaad su'aasha saxdi waa biida ee aadana maaha siidana maaha dhiidana maaha su-aasha labaad waa ayada su-aasha saddexaad waa siida ay halkii ku toosan tahay su-aashan kalena shanaadna waa siida lixaad waa biida toddobaad waa biida sideed waa biida sidaa u soco sagaalaad sidaa u marka si ay kugu fudaato haddana halkan gal 6 ku qor waa tan tasaxdi waa tan وبيدا ليان
وحالة use iyo dim use kana wada shidi karin حالة use ka for inta avant something with fat mushon bilha حالة use kiyo ku shidan hadana dim use ma shidi karti laakiin labada israaci kala waxa weeyaan barkeeri use iyo dim use ما شاء الله marka حالة use ka waa leedarkii caadiga ee gaarigu marka la istaaro indhihi caadiga dim use na waa leedarka gudcurka lamay waa leedarka eryanta okay waa tanadana ilaa hadda waxa lagu barayaa wadooyinkii wada markay gaarigii waa gudcurka lagu sheegay waka waa madowga leedarkina male wadadu leedar male marka iminka labadii bawr waa ku halkan waa qashba lagu siiyay labadii bawr way isdhaafayaan markii hore leedarku way iska gaabiyeen oo indhihii caadiga bay shiteen laakiin markay isdhaafayeen kana leerkii weynaa uu shitay kada leerkii weynaa uu shitay laakiin markii hore sheeda iska soo arkeen labadaba leedar yar waa caadi leedarka caadiga ku soo socday kani markii weynay shideen waa heelkii kii laakiin markay sarkeen ay ku soo wada socdeen waa halafkii way in more kfel maalin oo gudcura baa lagu leeyahay qalab gudcura show duubayaan aan isheeg waxaad ku waday baa aan isheeg baad ku waday duuvool moote mid aanan shombi dabadeedna waxaad la kulantay oo ama aad aragtay gaari kale ayaad la kulantay oo balanda after half use dabadeedna waxaad markaa u bedeshay gaarigii full baad markii hore ku socotay full leerkii indhihii caadiga aad bedeshay halkaa kadib su-aashii waa layna weydiinaya naar buu dhow islo bohel usad iyeen naar buu dhow islo goormaad dib u shidaysa bohel usad iyeen mar kale goormaad dib u shidaysa vid khelva mote weya labadani way isku dhow yihiin strag after mote markaan saa ula kulmaba weli kani sax maaha vid khelva mote weya markaan simanahay ayaan la kulmaya waatan wadigan arkaya halkaa markay labadii toos isweydaarinayaan ayaan dib u shidan karaa laakiin halkan haddaan ka shito waan cawarayaa gaarigii isna way cawaraya sidaas loola socdo maasha allah muxuu kana su-aashan halkan ugu noogu qoray number 3 slobo hel used motes fogamblig bale halkan uu kugu macneeyay war leerka shid baa lagu yiri hel uska marka mootaha aad sidaa u kulmaysaa kulantaan وايح بشور الماركت واحد قوة دا وماركي ولي وقوة قدعك واحد قوة دا عن حل قدع ربالي فيلكين alternative وحلين الله كويبا alternative إذا وكو A B C كون كيبا هذا for build at avant the hell use أي ممنوع تاعي إن هذا استعمال شو وحلو يغانو هيل يوسك صدح ذن كلا دورو كيبي ممنوع تاي مادام اي قدعو تاي كيبي ممنوع كاتينات هيل يوسك فول ليركي استعماشو سؤال شو waxay sax ku tahay way kala duwan yihiin labadan ba way sax way ku noqon kartaa vid mote markaan la kulmo mid go'an dee lugeeyaha markaan la kulmo sax way noqon kartaa oo haddii si kalistaha baaskiilka aad weydo su-aasha labaad ee lagu soo dhacay inta badan waa lugeeyaha waa inaad ka taxadirtaa laakiin markuu baaskiil meesha marayo baaskiilka ka xaq weyn sababtoo ah ninkani wuxuu dusha ka saaran yahay baaskiil waa gudcur waa iska soo horbaxday indhii weyna waad ka shubay wixii laba lugood yar buu ku socdaa waad cawartay dabeedna wadadii buu kala garan waayey dabadeedna dhinacii wadada dhinaca jarka ahayd ee yarayde ayuu gaarigii ayuu kala dhacay qofkii wuu cawarmay marka looma baahno inaad fahanto waa mamnuuc inaad heer use isticmaasho marka baaskiilna wataa kaa soo baxa waddankeennii dee baaskiil adduunka inaynu ka dambayno baaskiilba ma jire baaskiilba yaa qiimeeyo hadduu nin wasiiri baaskiil furo waa ceeb xaggeenni ama dadkeenna caadigaaba ka gashaafay
marka waa su-aashu waa saasay biidaysaa buta weli waxaynu ku jirnaa waanu ka bixi doonaa raagsanina laydharkii baynu weli ku jirnaa filkan bilisnik fodo avanda laydharkeebaad isticmaalaysaa tii hore for inta bay ahayd eegarigaa ku khaldamina for inta bay ahayd laakiin tan waxa weeye bilisnik laydharkii waan isla garanay vilkanna inta badan waxay noqotaa kuwee vilkan bilisnik fodo avanda ayaad isticmaalaysaa naadhuushoor markaad ku wado laydharkeebaad isticmaalaysaa markaad ku wado diima waa diimahan waa maxay diim waa ceeryaanta ceeryaamadu markay jirto underdogtiid weliba maalintii ila ceeryaamaha habeenkina way soo dhacdaa maalintiina way jirtaa tani waa tii maalintii waa tan markaa labadii laysla isticmaalayay maasha allah tabaaraka allah waa kuwan iminka maadaama ay diima jirto diim use tilsamaas mid barkerin use wata diim useka waxaan shidayaa diim useka waa laydharka yara cadcadee hoosta hoose ku yaala baabuurta afrika la geeyay inta badan mabaleba diim usadaas wadamada yurubta inta badan barabka jira loo soo diraa diim use yani waa laydharkii ceryaanta tilsamaas taasoo ay weheliyaan barkerin use su-aashaad ka shakido maxaan ku yiri halkan taabo sagaalka ka tuur 53 haddii kale waa kan haddii kale qoraba inta shaxdan koobi ka qaadatood qorato isoo dhig miiska si aad halkan qashkana waarto su-aasha waxay ku saabsan tahay sidaa degdeg baad ku xafidi kartaa number 9 waa maxay waa siida adiga arkay waayahay su-aashana waxa lagu yiri markii aad doonaysay inaad control bisigtig samayso bisigtigu wadamadeeni lagama dheelo laakiin wadadan baa laga dheeraa gaarigu sanad walba waa la jeekin garayaa meel geershaa la geeyaa lacag yar baa laga bixiyaa qoladaas waxay xaq u leeyihiin gaarigaaga inay eegaan oo ay gebigiisaba wadada ka saaraan xataa haddii aanu u qalmin inuu dadka dhex socon karo gaarigaaga hadduu cillado badan leeyahay cilladuhu siday doonaan noqon karaa laakiin cilladaha qaar baa sii khatara ijiinka oo finisha isagoo oo qiiq badan hawada iyo dadka ku saaraya meelo badan bay keegaan marka calaa kulli xaal waxay xaq u leeyihiin inay yirahdaan gaarigani ma sii socon karo haddii kalena waxay ku leeyihin intaasoo khalad ka soo samee bil baad haysataa bil dambe nagu soo celi haddaad bisha ay ku siiyeen kusoo dhammayn weydo waxaa haa gaariga waxa weeye waa short for build ama gaariga ma kaxayn kartid oo waddada ma marin kartid marka su-aasha waxa lagu weydiiyey waxa lagu yiri markii aad control bisigtigii sameynaysay waxaad ogaatay in halafyuski indhihii caadigi hargodson ay kaa joogeen obduuska shoratil enverkistot waxaana doonaysaa inaad tagto enverkistot meel oo geerasha inaad tagtaa doonaysaa underdogan isla maalinta oo kufeederet aad bro jawiguna ila nimankani waxay ku xisaabtamaan hawooyinkan isku diraya mar waa diimo mar waa baraf mar waa gan mar waa kuleyl qabo markaa hawaduna aad bay fiicantay filkan use iska dhawaa vanda laydharkeed isticmaalaysa marka waxaa kaa jiray waa maxay waa kan halaf yusku waxaan nidhi waa indhaha caadiga ee caadiga ayaa kaa jira yenom in control bisigtigaasna waxa weeye markaad checking garanayso gaariga bisigtig waa meesha gaariga lagu checking garayo markaad control ku sameynaysay bisigtigii ama gaariga sanadlihii checkingkii aad sameynaysay baan ubtagtadhu waxaad ogaatay at halaf yused hargodsonder inuu indhihii caadigii ay kaa jabeen indhaha caadigu de way gubtaan jabid kale maaho gudba gudfan maayo laakiin leydhaxa soo yar labaa ka shaqaysa way gubtaan ogdu iska shooratilaay verkistot waxaanad doonaysaa inaad tagto verkistot maxaa la yidhaha waa geerish verkistot waa geerishka waa geerish underdoga maalintii dhexdeedii
jawiguna waa bro leyrkeeda isticmaalaysa. marka waxaan doonayaa inaan idiin sheego dadka oo luqaddu ku adag tahay baan rabaa inaan halkan aad ay u yar kala fahfahmaan oo xataa eg ku ceshagaa faraha badan aad ku ceshato haddaad marka baalmankan dhow jeer 10 jeer ku ceshato xataa waxaad dadka ay luqaddu ku adagay xoogaa luqaddii baad macallinkii dee safiiga kuu dhigay baa may xoogaa kaloo caawimaa baad helaysaa oo qof walaalkaayo Soomaali waa dadka reer Sweden baan lahayn. marka sida balmaasay isku soo dhacay macallin qashka noogu celi markale. Allahu akbar hal qof kooda casharadii hore aan duubay ayaa laga soo cawday waxaa la yidhi qashka macallin sidaa dhaca qaybta qashka noogu yar ma tus mar kalena soo tus halka la gelayay laga helayay qashka. alxamdulilah casharka marka aan dul fadhiya hadda ayaaban kusii sharaxaya insha allah qashka. waayahay halkaasaad taabanaysaa tuman weeye marka su-aashan sidaasaad oranaysaa iska masaxaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa baarmankani wuxuu ku dhamaadaa 53 su'aalood 53 baad ku qoraysaa saasaad u taabanaysaa sidaasaad markaa ku helaysaa su-aasha saxda waa tan 9 baynu maraynay 9ka tee saxa aad u sax maaha biiduna sax maaha siidaa sax siida wataa ku toosan sabab biiduna maaha. marka saawlo socdo ma sha Allah way dad badan baa jira baarmeedan haysta haddana garanayn habka loo isticmaalayo waa yaan dar weeyaan inaad fahantaan insha Allah dadku kuma soo dhalanay fahma mar walbana waan soo dhigaa khadka ma sha Allah. sagaal ku noqono saambad sagaalun baad ku qoraysaa meeshii waad joogtaa. su-aasha u dambaysa su-aasha waxa weeyaan sidan bay sax ku tahay DMUs waad shidaysaa tirsamas laakiin waxaad raacinaysaa baarkeerin yuuska waataynu soo dhiganay DMUskii waad shidaysaa indhihii markay diima tahay diimkii waad ku qasbantay DMUskii iska shid laakiin waxaad raacisaa baarkeerinkii oo baarkeerinkii gaarigii wuu socdaa gaarigii waa in baaburka ka horeeya waa arkaa ilan waa eryaane in casaankii indhaha haddii dambe casaankii baxayaan baarkeerinku intaasaa looga jeeda. tanna waa maxay waa 10 number 10 maadaama waxa kaa jabay waa maxay su-aashuna waa taynu macnaynay maadaama waxa kaa jabay waa half yuuskii waxaana doonaysaa waa maalin weeyaan waa maalin caddaana waxaad doonaysaa inaad tagto geerish tagto waxaad xaq u leedahay inaad shidato waxa loo yaqaano DMUska ama ka eeryaanta waad iska shidan kartaa si aad ugu gaadho geerishka. su-aasha saxda haddaad doonaysaa sax ku tahayna waxaad ku ogaan kartaa saan kuu sheegay 10ka ka tuur 53 ku qor oo baarminku halkuu ku dhamaadaa jag waa kan 10 waad iga arkayo waa aada 10 waa aada haddana halkan ku qor 10 waka waa aada waayahay. su-aashan waxa lagu leeyahay xaaladahan keebaaf ayaanad shidi karin waxa loo yaqaano diin baaqiyuuse tanda ayaanad shidi karin
impact use tender waxaweyaan waa baabuurtan casriga ee dambe ayaa leh impact use waa leelana aad u cadcad xagga dambe ku yaala kuweebaana shidi karin xaaladahee waxaanad shidi karin waatan su-aashu vidlet duugren iyo morkan duugren waxaa la yidhahdaa markuu jiro tiix roobka tiixtiixaas ee ay tahay gudcurna tahay roobka tiixina shuuxina uu jiro lama shidi karo eragaasaad ku xafidaysaa duugren lama shidayo impact use baa la yidhahdaa leerarkaa marka haddaad ku qorto impact googlahaad ku qorto wuxuu soo baxaya si aad u aragto markaa si aad hesho caawimo kale baarmankan markaad sana u dhiganayso halkan oo kale waxaad sii furataa dhaata kale ama wax kale oo hadaad haysato qaybta googlaha ereygaad garan weydo saa u qaad xagga qaybta soomaaliga ah xataa tage swedishka maaragtay lagu turjumo xataa tag yar eeg waxay kuu soo baxa isku dhex wad markaa luqadda hadday kugu adagta ilan luqadeeni maaha uma inaan dhalanay innaga maxay naga galeen luqadeeni maaha aan iscaawina unbaa muhiima waayahay wuu inaga bedelay markaa laydharkii weli laydhkii baa laga hadlayaa maya xaaladahan kuweebaad ay in badan aad sii sugaysaa in aanad halaf yuskii aad u bedelato sababtoo ah gaariga kaa hor iman doona markii hore hel use baa kuu shidnaa indhii waa caddaan iminka oo caddaan baa lagaga dhigay laakiin markaa lagu soo dhigay imtixaanka waa midab marka kuwankeebaa leerku kuu sii shidnaanaya baa lagu leerkii fuulkii kuu sii shidnaanaya kan iyo kan iyo kan iyo kan afartan keebuu kuu sii shidnaanaya waayahay su-aasha 12 53 waa siida weyaan 12 aan ku noqdo su-aashaas shakibay gelisay 12 53 waxaan nina kuma soo dhawaan 12 wasiide taa macnaheedu waxa weeye layrkan sidii waa kan macnihii waxaan doonaya inaan isla helo macnihii waxaan ku macnaynaya si ardaydu fahmaan iyo waxaa gashakiiba hadda fiiri aniga full leerkii baa ii shidan full leerkaygu wuxuu toos ugu baxayaa geedaha waddadina way qalloocatay geedahaasuu toos ku baxaya halkan imika ma arkaysaan idinku laakiin halkaa hore kolley marka aad dhaatada dul fadhido mootaa soo socota imika ma muuqato laakiin waan arkay anigu markaan imtixaanka marayay kaa meelaha hore marka wixii soo socday leyrkiisii wuxuu ku dhacayaa gurigan ee fuulkii uu shitay anigana leyrkayga wuxuu ku dhacayaa geedaha isma taabanayn yani haddaan laba toosana imika haddii halkana gaariga biida oo kale gaariga tooskee soo socday aniga indhahayga way isku dhacayaan toos laakiin muddo marka uu gaariga iyo gaariga aanu iyar isu soo jirnay ka ayagu toos isu qabanaya meelaha markaan marayo ayaan ka jaraya isna markuu meelaha soo gaariyo iga jaraya laakiin haddoo kale inaan bedelo maaha ويعني الله يركي توس كاسو كل حاجة وأنا مركي بقول كتاي حلقة بقول كتاي يلا عندي وهاي بو بلدن
oven seedu halkan waxaad ku aragtay bildahan halkan waxaad ku arkaysaa heer diima snow over there waxaad ku aragtaa dee ceeryaan wadadii haysata filkii yusbuud waa baanda keed isticmaalaysa leerkeed isticmaalaysa tan oo kale markay sidaa tahay saa tahay labadaa horta weligaa yaallaa helius iyo barkerius mooda isticmaali kartid waa mamnuuc kaad isticmaalaysaa waa tan weyn waa b barkerius tilsamaas mid halafus waan idiin soo sheegay may maanta liti aan ka noqdo ka bax waxaan waa lagu dooqaya mararka qaar ka noqo شبعة يا أرضي ما عشان ولا ولا هي حي في السبب أوكي كويس هي هالي هذا ترى إن شاء الله هالي نقطة صنقضي ما شاء الله بارك الله فيكم حقين مريني محن مريني يعني لبية توان مرينا لبية توان بسم الله لبية توان مركاو لبية توان waxay ahayd waa t waa c لبية توان waayahay saddex iyo toban maxaad shidaysaa baa lagu yiri 13 haddii joogu sidaa noqdo oo ceeryaanta uu noqdo maalina ay tahay waxaan shidayaa waatan barkerius tilsamaas mid halafus ma shidayaa waka saxdi wata barkerius kana waan shidayaa waxaan la shidayaa halafus kana shidaya markuu joogu sidan yahay diimada yar iyo baraf baa meeshii ku dhex jira marka haddaad tirahdo diimyus la soo gelito may joogo waa si fiican baad u arkaysaa diimadu waa markay caalgo jiq noqdaan laakiin hadda waxbaa kuu muuqda markaa su-aashu waxa weeyaan biidaysa waayahay wadaad allahu akbar socod 14 waxaan la yidhi bayni dabakhiibe la yidhi waa maxay wax siday bar sharciyada dadkani kuu barayaan 14 waxaa lagu yidhi waa moork waa godob
فوديما لبدي بو يسرحسدا فيلكن يوسف فودو انت افان لكن ereyada ku khaldaya inta badan waxa weeyna ka leedarkeebay tahay inaad isticmaalo muddo isticmaalo leedarkeed tahay inaad isticmaalo 14 waa eeda markay diima tahay moorkana tahay ayriyaana tahay heli yuuskaasi waa ka mamnuuc hashida waa weyn hashida way imika waxaynu gelaynaa sheeko kaloo dheero niyow waxaan baabuurtan in noocyo badan yihiin markaa waxa weeye qaarba waa nooc qaarba xagga hore ka dhaqaaqa labada taayir hore ka dhaqaaqa qolooyinka makaaniga waxaa macallimiinku ah dee makaanignima lagu bartaa qaarna xagga dambe ka dhaqaaqaan frame wheel drive nigbaa ilaa kuwa xagga hore ka dhaqaaqa back wheel drive waa kuwa xagga dambe ka dhaqaaqa kuwana waa four wheel drive waa afarta way ka dhaqaaqa waxa imika laga hadlayaa wax kale maaha waxaan tun baa laga hadlayaa alaab culus marka la saaro aqligaaga aad ku garo huure gaarar biila siduu gaarigu u shaqeynaya ondulaster markaad ku rarto dontunga iyo bagaash luuka markaad alaab culus saarto xagga dambe bagaash waa alaabtii luukana waa khaanada duba markaad alaab culus saarto siduu gaarigu u shaqeynaya aduu caqligaaga garantay gaarigii aad xagga dambe alaab culus saarto taayiradii hore ayuu dhulka ka soo qaadeen wuu haystaa laakiin balla xoogii ay taayiradu afarta taayir bas aad dhulka wada haysteen ma haysanayo idan xagga hore darawalkii baa saaran iyo rakaabku waxa ka culus alaabtan xagga dambe saartay markaa gaarigii fuuqa ma wada qaadayo laakiin marka maadaama uu gaarigu hadduu ahaa muxuu ahaa xagga hore ka dhaqaaqi jiray waxa weeye dowladoo kale markuu gelayo meel fog buu kasoo dhamaanaya haddii uu gaarigu ahaa mid ka dhaqaaqi jiray xagga dambena si gaara ayuu noqonayaa hadduu waxay ku xidhnaanaysaa kolba gaarigu waxa kuga dhaqaaqi jiray markaa su-aashu waxay sax ku tahay ninkaadii waa 15 lambarku su-aashu waxay sax ku tahay sida hadduu gaarigu ahaa biilan normal street hadduu ahaa the cambelier over street hadduu gaarigu normal streetka waxa weeye halka ku calaamaso hadduu gaarigu ahaa gaari maaragtay sida baabuurtan caadiga dadku xagga hore ka dhaqaaqo oo kale uu yahay waxa weeye wuxuu noqonayaa saddexdan erey baa la isu kaaga dhigaya normal street under street iyo over street marka wuxuu noqonayaa over street oo macnihii waxa gaarigii dhacaysa markuu gaarigii weecanaya ilaa xagga dambe aad ka rabtay gaarigii taayiradii gariibkii ay dhulka qabsan lahaayeen meeshii uu ka soo wacan jiray meel aan ahayn ayuu gaariga ka soo wacanayay laalo culays maxaa dareemaysaa iminka rarkaa lagala hadlaya rar baad gaarigii xoog xagga dambe saartay maxay tahay inaad fahanto baabuurkan aad fahanto markaa maxaa isbedeli karaa ujeedadu markaa su-aashu saasay siida saabada waatan iyadina haddana halkana sidii un baa laynoo baraya waxa lagu yiri nadu stiil iyo curva markaad gaarigaagii aad ka weecinayso stiil waa weecashada in curva markaad gaarigaagii iska weecinayso sheena dhow waxaa dareentay atbiilan sfenger meer inuu gaarigii intii in ka badan uu ka soo weecanayo waa waxaan imika sharaxay intii in ka badan inuu ka soo weecanayo meer anvad som motsfarar afratanis vridnik marka loo eego baa lagu yiri ratanis waa shukaanta vridnikna waxa weeyaan oo weecitaankeeda yacni gaarigii baa doonaysaa inaad goolad baa istiri ka laab gooladda markii hore aad saa u laabaysa hoostuu saa uga qaadan jiro markiiba gaariguu ka bixi jira imika waxaad artay gaarigii oo hayaa meeshii uu ka weecan jiray maaha meel kale uu ka yar saraysa ka soo weecanaya maxay tahay inaad dareento ood fahantaa lagu su-aashuna waxa lagu yiri voodkaana shookanfaara maxay sababtu noqotaa intan erigani waxa wey intan war sababtu waa maxay baa uu shookanfaara maxay sababtu noqotaa waa yahay su-aashu marka waa su-aashu waa misla markeedu inuu gallo 16 waa intii iminkaan kuu sheegan kuu sharaxay biilan arbacton gaarigu xagga dambe u ka raran gaarigu xagga dambe ayuu gaarigu xoog uga raran yahay mar hadduu isgoyskii meel fog ka soo qaadanayo tii un baa lagu fahamsiinaya maasha allah
Vainabar at Bashombil are understeed maxay ka dhigan tahay inuu gaariga Bashombilkii uu noqdo understeed kan hoosta ka waaqnay maxaa keena maxay noqotaa sababtu waxaa keenta inuu gaarigu understeed noqdo macnihii Bashombil vushata raad faraan ikorfo waxaa lagu gartaa markuu gaarigu understeed yahay gaarigii wuxuu sii haysanayaa halkuu kurfa waa isgoys halkuu kurfadii isgoyskii uu xaggan sokii ka weecan lahaa gaarigii markuu understeed yahay waxa lagu gartaa kurfadii uu ka soo laaban lahaa ee degdeg uga soo laaban lahaa waxaad arkaysaa isaguyo sii haysanaya oo aad xoog yani kaga soo celinaysa gaarigii marka waxa imika lagu barayaa ama understeed ama oversteed ama waxaan lagu barayaa waa inaad fahantaa gaariga markaad wax saarto iyo markaad keligaa adig iyo baasakheer u saarantiin faraqa u dhexeeya wuxuu la falgelayaa maadaama ani makaaniga wax ka soo dhigtay inaad wadkaagii muftaaxa intaad iska dartay oo iska kaxaysatay gaarigii xagga dambe ala culus baad saartay rakaabkii baad saartay carruurtii baad saartay werisuma haysid kumaad talagelin gaarigaagii maxaa kusoo kordhay maanta isbedel intee leg buu yeeshay markuu caadiga ahaa inuu kuu mari jiray iminka gaarigaagii culays intee leg baa fuulay oo ka siyaadaa waxa wayna la socon kartaa iminka waxaynu gelaynaa su-aal la yidhahdo fatan planning ama biyaha jidhaamaha fadhiista meelaha fadhiista biyo waxaa jira meelaha fadhiista oo marka dambe xilliyada wadamadeedana wallahi intay baraf isu bedelaan dhalo oo kale ayaa gaariga adoo 90 ku wadaad soo gelaysa ama 110 cagaha ay dhulka kaaga qaadaya ashahada xataa laguma hareeriyo ashahada laguma hareeriyo marka waa inaad aqoon u leedahay waa maxay fatan planning waa maxay aqoon waa inaad u leedahay waxa lagu rifaaska biyo hore maxaad samaynaysaa on the rocker wood for fatan planning haddii aad ku soo dhacdo meel oo biyahaas fadhiisteenkaasa war waa maxaad yeelaysaa dee waxa u wanaagsan ee ugu macaan u sameey su-aashu waa biida slab goosen gaastaan ka kacaya gaastu waa maxay leewarkaan ka kacaya so at Forden surcadaydina hungar waan soo dhimaya leewarkii baan ka kacayaa surcadaydii baan soo dhimaya oo undervika waxaan ka fogaanaya ama ka diyaar garoonaya istura raad roorse waxa la yidhahdaa inaan shikaanta aan kolba dhan u duubo oo xoogii iga boodboodo shikaanta aan kolba dhan u weeciyana waan ka diyaar garoobaya ilaan wixii waa cagaha dhulka layga qaadaya su-aashuna saasay sax ku tahay maxaad samaynaysaa baa lagu yidhi weligeedii baa lagugu celiyay su-aasha booliska dhuyora maxaad samaynaysaa for undervika si aad uga fogaato fatan planning maxaad samaynaysaa si aad fatan planning uga fogaato maxaad samaynaysaa waayahay su-aashu waxa weeyaan waanigii kuu sheegay halka u wanaagsan qaado shoramed tilrocklig log haviston log hastigeed haviston maaha log hastigeed waxaan ku wadayaa surco yaroo ku meel gaara surcadaydii hore mada wadada 80 ahayd konton baan kasoo dhigayaa salacale ila meeshii biyaa galay laakiin haddaan idhaahdo sharciga wadankan wadadan waxaa lagu qoray 80 ama 110 biyana wadadii galaan oon idhaahdo sharciga dowladdaa fulinayay oo dabadeedna cagaha inta dhulka layga qaado aan handicap noqdo oo maaragtay rules tool laygu qaado dee waa dhibaato marka waa inaad wax badan aad ku darta caqligu ha shaqeeyo baabuurta kaa dambeeyana ha cawarin u dig inay meesha biyo yaalaan 4 israac u shid adiga laftaaduna ka fikirine baabuurta kaa dambeysa laga yaabaa inay carruur saaranyay waalid dad gaboobay u dig dadka kalena waayo waajib baa kaa saaran macna kuu samaynayso inaad ka fikirto markan oo kale bini aadanimaa laga fikiraya xataa diin maaha wax laga hadlaya bini aadanimaa laga hadlaya waxa laga ninkan kaa dambeeya nin kristana noqdo buudis ciduu doono diintuu doono islaamka u dig adigii halisti waad ka badbaadiyay konton baad ku wadi
mid waxaad arkaysaa halkee ka soo socdo 130 ku soo wada israaca uu fahmaya markaa inay khatar jirto marka badbaadi hal qof adigana ilaahay baa ku badbaadinaya nafa badanna badbaadi waayo koonka ilaahay baa iskale ilaahayna wuxuu leeyahay makhluuqayga anigaa abuurtay buu leeyahay ilaahay marka hadlaya markuu yani addoonkiisa ummadiisa iyo adduunkiisa ka sheekeynayo alle subxaana watacaala dee naadaka baa ku mashquula anigu muslim baanahay anigu kristomaan anigu buudiiso kan baanahay diima ku mashquule ilaahay dee isagaa koonkan iskale waa dhammaan waaba xoolihiisa waa ummadii isagaa abuurtayba wax loo xukunkayo marka ilaahay ummadayda nabadgeli buu ku leeyahay meelaha qaar waxaad moodaa inaynu aada u fogaano nabadgeli ummadayda badbaadi ummadayda markaad ummadayda badbaadiso ayaan adigana ku badbaadinaya maasha allah waayahay su-aasha waynu ka gudbeyna 20 waxaad ku wadaabaa lagu yiri 70 kilomitir saacadii iyadoo ku wada wadooyinka nooca loo yaqaano landscape hoogar yulbar taayiradaadii midigta horhamnaad uta for asfalting waxay ka dhaceen taayiradaadii midigta waxay ka dhaceen uta for asfalting labadii taayirkaagii midigta labadii taayiree midigta ayaa xaggii jeegii saa uga yar dhacay wadadii bay xaggii laamigii saa uga yar dhaceen 70 waad ku wada hurguudhiyoona maxaad samaynaysaa aqligaagu ha garto haddaad istiraahdo wallaahi breeka sidaa isula taag waxaa laga yaabaa inaad breegaa aad qabatay ilan laamigii qayb baad kula jirtaa qaybka taayiradii bidixda kuwiina kalena waa kadib inuu jaygaasba meel jilicsan ahaayo taayiradu daruuriyaan oo dabadna gaarigu xaggaa kala taayirada ka soo qaado qalimo markaa short technique waxay yaraadaad samaynaysaa aad ku daraysa su-aashu waxaa ka fiican inaad break qabato iyo sleeper gasin waatan gaastaas leewarkii baan uta ka kacaya leewarka kicidda iyo waxaan iskugu darayaa inaan og stiir buu shegtid ub boo shoorbaan waxaan isku dayayaa inaan dib ugu soo celiyo waddadii stiir gaarigiina waddadii baan dib ugu soo celinaya gaastana waan ka kacaya laakiin break ma isticmaalaysa xaaladdu markay caynkan kale tahay shoorbaanana waa haadkii baan dib ugu soo noqonaya weyn markaasaa u kala fahmi okay baarmankan oo kale markaad baranayso waxaad u baahan tahay waqti inaad siiso inaad halkaa intaad dhigato uu kuu socdo ood aayaro fahanto oo waqti badan aad siiso si mar keliya baarmanka aad u liqdo waxaa ku yaala jam ugu yaraan anigu baarmankan oo kale markaan baraynay 7 jeer 10 jeer 11 jeer baan kusoo qishin jirnay 20 jeer ku celi sidana markaan u macnaynayna cidiba nooma macnay jiro iska kharafaadug baan ku baranay su-aasha 21 waxay ku leedahay dushoor iyo healthy iyo cold winter week waxaad ku wadaa xilligii winterka waddadu xilligii ay barafka ahayd ayaad ku wadaa vilken tillfälle kuwan kuweebaa saddexdan hoosalig kan du regna med att det är extra halt kuwan keebaad ku talagelaysaa inuu jiro saddexdan extra halt يعني silbasho xoogii kee weeyay jiro keebaad saddexdan ku talagelaysaa saddexdan laysu soo dhigay keed ku talagelaysaa kasare wuxuu yidhi marka aan ka baxayo dalcad backgroundka kana wuxuu yidhi kuurfada sluiska kana wuxuu yidhi doodo oker faten crafting waayahay 21 waa siida waa siida
waxaan ku talagelayaa inuu jiro extra hold ama uu silbasho siyaadii jirto marka aan anigu surcadaydii kordhiyo waata Foden crafting do oker Foden crafting marka adigu aad surcadaadii aad kordhiso مثلا تدبات ما تكون سعودية بس ديتين لأنه واحد قال لك بقول يا أفرت وأنا برف وأمريكا صار فيه كنا أمريكا يسترى هون وين أمريكا ولنوبة لهذا واحد ودا دوشور إم بي الأوتن أو بي إس برمسا واحد ودا قاري أنا لحين بريق لوية قانا أو بي إس بريجن وكان وبريجا gaarigaasi breega ma leh haye burbudhu yoro maxaad samaynaysaa undo for slot iyo halt develop haddii aad silma baxasho la kulanto xilligii barafka maxaad samaynaysaa ilan gaarigaagii OBS baromsa ma lehe mar haddaanu gaarigayga OBS baromsa lahayn OBS baromsu waxa weeyaan waa bahal marka xilliga barafku jiro oo kale marka gaarigiisa break uu qabato waxa lagu dareemaa gariir buu sameeyaa oo waa bahal sidaa u qalajinaya qadaha gaariga ee breega ajiya baabuurta qabta ayuu garigoodaba saa u controlaya wadamadan barafyada iyo waxaan baaday baabuurteena caynkaas ka wajooyeen breeg caadi u baabuur leeyahay nidaamsiga marka sideenu badbaadaya mar haddaanu gaarigii OBS baromsi lahayn xilligii barafkana ay tahay waa inaan khibrad kale markaa gaarigii ku wada oo maxaan samaynaya iyo free cobbler waa maxay su-aashu geer bedel baan samaynaya gaarigu wuxuu ku jiray 3 baan ku celinaya 3 markaan ku celiyeen crash ka soo kaco gaarigu isa soo qabanaya oo geer celiskaasi marbu break ka cawantisan yahay kadibna tuuba ku sii celinaya haddana isa soo qabanaya waayo haddii breegii aan qabto breegan caadigaan haysto ila waa xilligii barafka kaydan caadigii waxa laga yaabaa inuu anfici waayo marka si walba way kuu barayaan ok steel mut veganis rating wadadiina waan ku hagaajinaya ma ku soo celinaya ilan gaarigu wuu silba baxday soo maaha markii gaarigu wuu silba baxday maxaad samaynaysaa baa lagu waxaa markaa sameynaya gaarigiina wadadii waan ku soo celinayaa anigoon steerinka aan xoog u waalayn geer celisna waa samaynaya waayo xilliga barafka haddaad weliba baabuurta automaadka maaha waa automaadku iska dhibaato badaya dhaawac badaya laakiin mali war haddaad wadato haddaad rabto inuu gaarigu kula silbanayo weligaa breeg taaban geer celis samee 4kii ka saar 3 ku celi haddana ka saaro 2 ku soo celi haddana 1 markaa breeg taabo markuu gaarigu ku soo qaboobo farsamo samee dadku waxaa mada yaqaanaan laakiin dee kulley insha allah wuxuun baa laga faa'iiday waayahay waxaa lagu yidhi urduiska biita uut aa la fiirayo haddii aad 4 taayirba iska bedesho urduiska biita haddaad bedesho iska biita uut aa la fiirayo haddaad 4 taayirba iska bedesho waa kuwan 4 taayirba haddaad iska bedesho vo iska duuleega xageed dhigaysaa dumtufu besta 4 taayir ee gaarigu ku socday ayaad iska bedeshay waxaad doonaysaa inaad 4 kala geliso waxaad dhici karta marka 4 taayiraad soo heshay laba aad u wanaagsan xageed labada wanaagsan dhigaysa waa profroga waa wanaagsan labada wanaagsan waxaan dhigayaa back axle labada wanaagsan back axle ka dhigaya kana wuxuu yiri bofram axle xagga horaan ku xidhayaa buuri axle-ku waxa weeye waa candhada hore dee waa qaybta hore gaariga taayirada hore ayaan ka dhigayaa kan labadanu baan kala dooraynaa marka baag maxaynu uga dhigaynaa waan idiin soo sheegay baag waxaa looga dhigayaa maadaama gaarigu uu xagga dambe ku taalo baak luuka bagaash luuka ama meesha alaabta la saaro rakaabkii xagga dambe fuulayaan culaysku xagga dambe ku dhici karo taayirada wanaagsan ee besta ah ee fiican inta badan xagga dambe lagu xidhaa waayahay
Du har börjat att svänga in på en lokal väg. waxaad doonaysaa du har börjat waxaad bilowday att svänga inaad ku weecato på en lokal väg. Lokal väg waxa weeyaan waa magaalada dhexdeeda. marka adigu waxaad doonaysaa xagee inaad u weecato halkaas aad u weecanaysaa lokal väg. hur borde du göra i det här väglaget. xaaladan maxaad samaynaysaa? horta xilligan waa xilligii barafka waad arkaysaan oo waaba dhalo u noqday aabihinaar. marka had iyo jeer aad meelaha ku weecanaysana gaarigu wuu siliteeya. waayahay maxaad samaynaysaa baa layidhi marka xaaladan uu yahay barafka. waayahay halkana tareen baa soo socda. adiga arkaya tareen ayaa halkana maraya. si fiican uma aragno markaad imtixaanka marayso waa inaad dhag ku siisaa halkan. markaad dhag ku siiso shaashada kuu soo dhawaanaysa haddii tareenka lagaa hayo oo inshaar hortaagantii haddii kale waxaasoo laakiin tuu wanaagsan un baynu qaadanaynaa. su-aashu sidan bay saab ku tahay. iyo sanka waan yaraynayaa hastikeed surcadaydaan soo yaraynayaa oo stiir waan weecinayaa for shit si taxadir leh od hoogan dhinaca midigtaan si taxadir loo weecinaya. waayo halkan haddaan xoog ku weecdo wuu shilateynayaa gaarigu. markaa tareenkaa ka joogiyo waxaan lagama hadlayo. waxaa lagu leeyahay bal habka u wanaagsan aad samaynaysaa. marka xagga midig baan aayar weecinayaa foorad inte foorslaad si aanan u silban. du har fel på bilen på en landsväg. gaarigii baa wuxuu kaaga xumaaday landsväg. wadooyinka landsväg leeyahay gaari kaaga xumaaday wado kamida wadooyinka la maro. Vad ska du sätta för våningstriangel? halkeed dhigaysaa? sata waa dhigista. waxa loo yaqaano waa maxay våningstriangel? waa maxay? intaa ku qor googlaha uu ku soo baxaya adigu markaa garo. xataa haddaad jarmalka imka ardayda ga daawanayaa tiin intaa ku qor googlaha dabeedna dhinaca sawirka taabo googlaha waa luqadayadii. laakiin intaa haddaad ku qorto waxaa kuu soo bixi doona bahalkii rafiiqaysa lahaa ee gaariga xagga dambe la dhigay xaggiisa dambe inta lala rogeeyo la dhigay si aad gaadiidka ugu digto. forad vorna si aad ugu digto andra trafikin gaadiidka kale. intaa baleegaysay soo raacaysa sheekada. waa kan waxaan dhigayaa soo a trafik kantena vonas igutid. waka meel aan gaadiidkii kale si fiican uga digi karo xilli fiican baas ayaan dhigayaa. waxay ku xidhnaanaysaa saan sheegay haddii wadadu ay tahay meeshay tahay. marka tani waa landsväg waan la yar fogaanaya ilaa 150 mitir baan dhigaya haddaan doono. marka sidaa weeye su-aashu. du har blivit tvungen att stanna på en väg eller vägränd. waxaad ku qasbanaatay tvungen waxaad ku qasbanaatay baa lagu yidhi aad istaana inaad istaagto waddo ama meel vägränd waa waddo dhinaceed. i vilka situationen måste du ställa ut? halkee xaaladee ayay qasab ugu tahay inaad ställa ut dhigto? waa kan en godkänd våningstriangel. godkänd waxa weeye yani mid våningstriangelka habkii ugu wanaagsanaaye uu sax ku ahaa. xaaladahan soo socda xaaladahan kee dhigaysa. kana wuxuu leeyahay konton markay wadadu taan dhigayaa. kana wuxuu leeyahay markay konton ka badan taan dhigayaa. kana wuxuu yidhi 30 baan dhigayaa. keed raacaysa marka? daar waxaan dhigayaa daar meesha dentil otna hastikeed surcadiisu la ogol yahayna ay tahay inta ugu badan ee la ogol yahay ay tahay meer an 50 kilometer. waa bahalkii baa laga hadlayaa. waxaad ku qasbanaatay inaad istaagto baa lagu yidhi meel wadda ah ama feegna. laakiin marka laga hadlayo baa lagu yidhi xaaladahan kuweebaad ayaad qasab ay kugu tahay inaad dhigto godkänd triangel.
waa wixii konton ka badan konton wixii ka badan konton wixii ka badan waxaa maxaa caynkaa loo leeyahay kaniba waa konton baleeg labadna waa isku qiyaas laakiin farqa u dhexeeya waxa weeye intan baleeg waa isku mid daar daar den den tilotna tilotna hastigeed hastigeeten aar aar farqa u dhexeeya waa maxay waa meer aan waa lagu kala bedeli karaa bdaa c baa laga dhigi karaa waa inaad fahamto meer aan 50 kilomitr waa taata saxdi tanna waa konton kilomitr oo qulu yiri laakiin kani wixii ka badan buu yiri konton kilomitr okay halkana waxaa laga sheekeynayaa shilalka baabuurtu markay dhacaan ama gaadiidku in traffic olika intrafar shilalka wadooyinku waxay dhacaan naar nb som shorom day markii gaari adiga shorom dhaafitaanka wey markii gaari adiga ku dhaafay koroka uu ku dhaco mid mootan de foodo gaari kale isku dhaceen gaari adiga ku dhaafay gaari kale isku dhaceen marka waxa lagu fahamsiinayaa must do istaagabo olika balas ma inaad istaagtaaba olika balas meesha shilku ka dhacay ma inaad istaagtaaba shilalka wadooyinku waxay dhacaan marka gaarigii adiga ku dhaafayay ay isku dhacaan gaarigii ka hormari oo khalad buu sameeyay isagoo gaarigii midran iska eegin in waqti intuu ku dhaafayay ayuu intuu ku dhaafay uu gaarigii kala haad kala ana kooriyo waa la isku dhacay ma inaad istaagtaaba marka qasab bay ku tahay qasab labadan baa isku dhacay ilin adaa goob joog ahaaye inaad u gurmato oo dadka dhaawacan oo booliskii u yeedho oo baabuurta kale u digto xaasoo hawlaaday ku tahay laakiin inagu markaynu Soomaaliya joogno shaqadeena ma ku baabuur ma hadii malaayiin baabuur isku dhacaan inaga shaqadeena ma haban waba anaga halka maanta dadnimo aan ka marayno Soomaalihaan ilaahay xalkeena Allah hasan oo dhimashadii waxba bayna lama hayno qofku iska dhinto waxa la leeyahay shil baa dhacay adanin baa baabuur wuxuu ku kaxaynayaa masaafad buu baxayaa labada taayir afarta taayir gaari ku socda afartaba waa almasweyn yani monster yubki iyo xidirkii taayirada loogu talagalay deedina ma checking garanayso markaas uu leeyahay waan markaan laba lowrood dhanba ku baxo maarta ayaan habeynaya ma kulay ayaan gelin doonaa inteena la xagu qaadanaya maalinta dambe isagina waa ku dhimanaya shil baa dhacun baa loonay iskeegi ma tahay raahda waaya do have some for a belief in bilandat adigii baa lagu yiri oo darawal yahow adigu waxaad ka mid noqotay in traffic ka shil dhacay must do obye name oo address maqasab bayna address kiyana magacaaga wasiisa oo noogo nana dimbalanda sama olika foregarafta day mararka qaar waxa dhacda laba baabuur baa isku dhacaya ama shil baa dhaca adigina marka wada kowsatay hadhow muran baa dhacay inta badan waxba dhaca dabadna waxa dhici kartay dadkan labada nin mid ka midiba uu ku weydiisto korada walaal wadiga arkaysa wuxuu dhaceen dib baa jirta ma caawin kartaa ma siin kartaa adresskaaga iyo lambarkaaga waxa dhici karta marmar markay baabuurtu isku dhacaan inuu midmurmo meelaha booliska ma dhawaa oo kale xilliga waa meel durduur oo kale ama waa meel highway inta boolisku soo gaaray adigina waxa doonaysaa inaad hore u socoto oo dhaqaaqdo shilka xataa dhacay maaha mid ay dad ku dhinteen oo labadii darawal baa isaf dhaafay ku qasantay marka waad siinaysaa su-aashu waa tahay altid ilaa hadda waxaynu ku jirnaa sharciyadii wadooyinka waxa lagu yiri for vilket traffic brot oo tarkalaas normal shortcut waa maxay ganaaxa ka dhaca
gaadiidka dhexdiisa lagaala noqon karo liisanka si fudud si normal insha habkee ama sidee lagaala noqon karaa waa maxay ganaaxaas markaad maxay samaysa weeyaan su-aashu waa tan waa aada read smitnik from trafigolka smitnik waa maxay shil baad gashay shilkii markaad gashay ama subax adigoo shaqadii ku kalahaya ayaad gaari ku dhifatay gaarigii markaad ku dhifatay waa baarkeeri meeshii baarkeeriga ka dhaqaaqaysay gaarigii ninkii laa kuma arkay uu ka maqan yahay dadkan siday wax u fureydiyeen aniga way igu dhacday aniga jaamac bay igu dhacday macalin jaamac nin baan baarkeerinkan ku jira ku dhacay ag markaan ku dhacay de waxaan arki waayey waxaan ninkii waan garan waayey de magaciisii ma hayo lambarkiisii ma hayo dadka qaar waxay ku leeyihin meelaha qaar warqad qoro xilli barafna waa hedi warqad qoro halkan weebartan biyaha u saar adreeska telefoonka ay soo wax ku gaariga xagga oran kaga dhacaysa way dhacdaa iyagu isku aaminaan oo cidima tuurto warqadda iyo dee dadkan caddaankii laakiin dee innaga xayraankeenu waxaynu iska sheeka barleeyo warqaddaas xataa way lumi kartaa waxaana laga yaabaa inay dad xagga sare kaa soogeeyeen ama fooq way noqon kartaa meeshu ama meel inay ciduunku arkaysay marka waad iska dhaqaaqday warqaddina way luntay waa kiis baa lagugu qaadi karaa marka haddaad warqaddaa dhigayso oo kale kamarad ka duubo inaad warqaddii dhigtay oo tiif iyo bahalkaa ka duubo haddii xataa lagu soo sheego waad haysaa waxdeeda warqaddii waaniga halkaa saaraysa laakiin mid ka dhow baabad dee samayn karta anigu ninkii markaan waayey isla markiiba telefoonkaan diray booliskaan lahanday boolisku markay iga qabteen baa waxaan ku yidhi hawshaasaa dhacday ana shaqadii ayaan ku cararayaa bas baan kaxaynayaa rakaab bay sugaya maxaan sameeyaa ninkii baabuurka lahaana ma garanay maxaad ku dhifato waxaan ku yidhi wax yar meel yar baan saa u xuqayo aan waxba ahayn okay sawirka qaaday baa layidhi lambarka gaariga noo soo wareeg horta marka anigay weydiiyeen marka warbixintaydii sheeg waayo markiiba warkaygii bay heleen qofkaan hay shaksiyan markay heleen bay yidhahdeen gaariga lambarkiisa noo sheeg way sheegay way heleen baninkii isagu macalinka telefoonkiisa wixii oo dhan waa boolisku dee iyaga talada badankeeda gacanta ku haya dhac annagaa la xidhiirayna ninkii baa la xidhiiray laba wiil kadib ninkii iyo booliskii waa soo wacay ninkiina beeshii booliska loogu yeedhay markaan daaqadda ka arkay ninkiio oday weyn bu hayo qaylqayliyay oo baan aniguna muraayad baan ka dhex arkay waan shakii xansay talo maxaa dhacay madow labad baad gashay talo maxaa dhacay maanto aad baan u shakiyey markii dambe ka laga furay gaarigu midh muu noqon dee xagtii buu hayo waxba markaasaa deena odaygii bay guri markaa waxaan waqtiga badan nooga cunteed isku soo lugaysay qof taacadaa tahay waxaan oo kale dadka looguma yeedho maxuu qaarigayga waxba ma qabo laakiin waxaan ku yidhi sharciga waddanka caynkaa dhigaya booliska waxay yidhahdeen sax xaq baad u lahayd inaad saas samayso haddii kale waxa lagugu qaadi laa mataqaanaa sharciga loo yaqaano smitnik baxsasho liisankana urud baa lagaga noqoya marka sharciyada aynu ilaalina baaraka allah fiikum duhar committee and traffic waxaad ku timi meel uu shil ka dhacay booliska dhow yaalay sideed u caawinaysaa bashuur qof somcaar medveslos kaasoo naqaska ku taagay yani soo xusan medveslos oo isluuta andas naqaskina wuu ku taagay laba arrimood ayaa isu raacay waa miir la-aan iyo isluuta iyo naqaskiyo dee okay su-aashu inaad fahantay isku da inagu inaynu qof sidana caawino maahee 950 qof baa isgoyskiisoo dhan ku dhintay within 10 minutes xaasimadeenii dhammaan hadda waa within 10 minutes wuu qaraxdii waa kun qof wax imise meelood baa naftu aanay waxba ka ahayn oo meel walba dhibaato ka taagan tahay oo dadnimada oo dhan soomaali markaynu nahayba asalkeenuba allah sahlo
wax yar si fudud baa loo bartaa sida dadka loo caawiyo ee shilku markuu dhaco dadka loo gargaaro waxbaba inalama waa ha socoto waniyo soomaalida ciiday ka fara badan yihiin ma inta dhimanaysa iyo inta dhalanaysa waan kala garan waayo waxaa haddiina la barayo waxaa lacago madaxdeedu ku cunayso iyo waxaa lacaga adduunka laga qaadayo iyo waxa ay jiyo socda haddii dadka la baro markuu shil dhaco sida qofka loo caawiyo naqas isku taago iyo qofka sida loo caawiyo kaliya haddayna bari lahayn waanu ducayn lahayn madaxweyne kasta ha fuule waanu ducayn lahayn wasiirka caafimaadkaad iska maqlaysa waa been wax laga faa'iido dhowr guri oo xaaraan u dhisanaya wuu ka tegaya mambalaastii isagaa haya wixiiba gacanta ku haya allah ilaahu soomaali u gurmaya rabbi hadda soomaali kama hadlaya meel gaara dhammaan waynu wada qabnaa from top to tie from kasoo bilow ilaa iyo meesha soomaali degtaba halaagaasi uga jiraa inaynaan qofkii hortaada ku dhiig baxaya ama qofkii naqas kugu taagan yahay ayaa mid bay naftu ka baxaysaa buu iska waraya intuu telefoon diro waan bal isku dayo wadnaha baro sida qofka looga soo saaro naqaska qofku markuu biyaha ku dhaco dibadda baddu liqdo ama laga soo saaro biyo waa adiga arkayo naqaska ayaa laga soo saaraa biyo badan buu soo butaacaa kadibna qofka saas ku noolaada haddii biyahaasi ku sii haraan in ka badan soddon daqiiqadood qofkii u dhimanaya marka waxaan caynkaa u leeyahay haba soomaaliyeed oo aad u damqanayaan ahay dadka maalin walba lagu leeyahay shil buu ku dhintay ee hargeysa ku marnaya ee burco ku dhimanaya ee sheekh ku dhimanaya ee ku dhimanaya buurame ee ku dhimanaya muqdisho ee garoowe ku dhimanaya ee ku dhimanaya nairobi ee ku dhimanaya kilika shanaad waa u wada damqanaya aniga dhaaba soomaaliyeed baanay dhammaan soomaaliya oo dhammaan u damqanaya haddaynu wacyigelin badan ka samayno wax badan baynu qaban lahayn oo intay soomaaliya oo dhan telefoonada isku xidhanno war maxaynu yeelnaa oo wax u rarino waynu samayn lahayn laakiin dee sootan maaha waxaynu haysanaa madhab yar oo la yidhaha qabiil haddii diinta iyo ilaahay hortaada lagu caayo kama hadlaysid laakiin haddii reerkiina lasoo hada qaado maarka dhiiggaa kugu kacay marka allah ina daweeyo su-aashan markaa qofkaasaynu la kulanay sidaasa labadaa nabar leh war maxaa markaa xala su-aashu waa siida walaa yosee till att personen har friluftsvägar waxaan horta marka hore isku dayayaa inuu qofku helo friluftsvägar waxa weeye inaan horta dharkii uu gashanaayo jiqda ku ahaa ila qofkii dhib baa ku dhacday markiiba waa ka furfuraya waan dabciyay markaasaan sidaasaan u dhigaya calaabeerka mahay calaa dhacdiidkaan u dhigaya waxaan isku dayaya inuu hawo isku siman uu heli karo qofkii uu tooso markii hore hadduu doono dhinac buu u dhacay maqluubo gebigiisiba waan soo toosinayaa sidee wanaagsan baan ka dhigay yeer kondijuurkaasi waxa weeyaan waxaan siinayaa waa waxaan inta halkaa labada gacmood la isu geeyo labada gacmood baad isku xidhaysaa dabeedna halkaa labadiisa naas dhexdiisa ku toosan wadnihiisa ayaan 10 jeer ayaan cadaadinaya si aan naqaskii uga keeno hadduu intaa ku imi waayo waa ku celinaya haddana mar kale laakiin kondijuurkaasi waxa weeye ereygaas waxa weeye waa gacmihii oo aan waa bushkarayntii oknar haan alerhun marka uu qofkaasi ama nin buu noqon karaa ama naagi ay andas naqaskii ka soo baxo leegariyo waxaan u dhigayaa bashuunen qofka waxaan u dhigayaa u jiifinayaa iframistuba sidolege waxaa la yidhahdaa qofkii dhinac markuu naqaskii ka soo bodo qofkii alxamdulilah ambalaasba maxay soo gaaray qofkii wuu dhimanaya markaa naqaskii ka keeno dhinaca barbarkaan u dhigayaa halkaa madaxiisana gacantiisa ayaan saa ugu barkinayaa si uu naqaskii uga sii socdo markaa laga afka xumbooyinka soo yar saaro qofkii dabadna ambalaaska soo gaaro maasha allah tabaaraka allah waa idin salaamayaa jazaakum allahu khayran jazaa walaalayaal halkaas ayaan jeclahay inaan ku joojiyo ilaahay idankii barnaamijka 6 baan ka macneeyey jazaakum allahu khayran jazaa walaalayaal noolaada allah idin barakeeyo soomaaliya ha waarto walaalahana waddankaa doonto joog waa sababtale macalin jaamac oo idinle markaada waxaan baranaysaan balluugnare oo fiinara u daawada istijiya haabi u baro su-aalaha kadibna xafid sharcigu waa xafidaad markaa waad soo qaadaysaa liisankii haddii haddaba ay ku dhaafeen cashiradan aan soo diyaariyaa walaal gal
pagekayga facebooka ama gal pagekayga youtubekaan ku leeyahay oo ah samafale macalin jaamac oo kaliya ku qor casharada wax alla wixii ku jira soo dejiso 10 jeer 20 jeer ku cesho ilaahay dartii wax lacag cidna kama qaado kadibna ka faa'iido insha Allah isku day laakiin wala xaasid ha noqone inaad wala like saarto sharena subscribe ka ku qabo dambalelkana taabo si casharada dambe aan soo dhigaa markiiba kugu soo galaa midda kale wala si share kare wala wax la aamusini dadka qaar bay lacag badan kaga baxdaan hala aamusini allaan kugu dhaariyo wala si share kare laba qof hataa aad share gareyso ducaa kugu dhacaysa haddaad facebookaaga dhigto intaasoo qof ka sii share gareeyaan ajir baad ka helaysaa wala marka walaalayaal tacaawunu cala albirri wa taqwa iscaawino dhammaantiin waa mahadsantiin allah idin nuuro waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabad gelyo